xorriyadda waddankani Kenya ayaa waxaa qaarkood ay xaalad nololeed ku haysataa gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya. Raggaas ayaa qaarkood waxa ay Kenya ka badbaadiyeen inqilaabyo dhici lahaa. Warbixin umuurtaasi ku aadan waxaa Gaariso naga soo diray wariyahayaga Cabdiwali Cabdi Maxamed. Freedom was hard won, and now it is under threat. Kahor xornimadii waddanka Kenya sanadkii 1963 ayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Jomo Kenyatta ay gumeysihii waddanka haysan jiray waxay ku xukumeen 7 sano oo xarig ah. Kadib waxaa la sii daayay sanadkii 1959. Cali Xuseen Cabdi wuxuu ka mid ahaa askartii ilaalinaysay madaxweynaha markii ay gumeysigu soo daayeen wuxuuna keenay ilaa magaaladiisa, laakiin wuxuu sheegay in ay dawladdu ilowday haliyadii hore. Bishii Juun ee sanadkii 1963 ayay waddanka Kenya xornimada qaadatay, waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Jomo Kenyatta. Sida xaqiiqda ah ma aaminaysid geesiyaashii u soo dagaalamay waddanka oo ku sugan xaalad faqiirnimo, isla markaana aanan waxba haysanin. Waxaadna arkaysaa intii yareyd ee la shaqayn jirtay gumeysiga oo xaalad wacan ku nool. Xaafad ka mid ah magaalada Gaarisa ayaa waxaan kula kulmay Aabba Cali Xuseen. Wuxuu ka mid ahaa guutada GSU-da, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa askartii Jomo Kenyatta ka soo qaaday tuulada Lodwar, haddana keenay ilaa Maralal, ugu dambayntiina keenay tuulada uu ka soo jeedo Gatundu. Waa kan Aabba Cali oo nooga warramaya taariikhdiisa iyo xilligii uu bilaabay shaqada dawladda. Shaqa waxaan ka bilaabay anigoo 20 jir ah. Shaqada booliska ayaan shaqo ka bilaabay. Police training markaan bogeyna General Service liigay. General Service anigoo ayaa hay'adda Muse Jomo Kenyatta la diray on ka soo qaaday Lodwar barigo dhiteenka ahaa. Lodwar aan ka soo qaaday Maralal keenay, Maralal ka qaaday Gatundu baan geeyay. Nabadgelyadiisa ilaalinayay markaaseeto askari baan ahaa. Markii la soo sii daynayay oo xornimada in la sii aan rabnay, marka nabadgelyadiisa ilaalinayay kaligayna ma askar kale ila jirtay. markaan Muse aan Gatundu geynay on ka soo tagay. Cali Xuseen wuxuu ii sheegay in uu ka mid ahaa askartii sanadkii 1963 calanka Kenya saartay, isla markaana kii gumeysiga dejiyay. 63 haddana calankan saaray, xornimadii aan qaadanay December 12. xornimadii baan qaadanay, askartii haddana calanka saaraysay, kana dejisay, kana saartay. Union Jack baan dejinay, calanka Kenya saaray 63 December taariikh 12. xilligaasito General Service baa liiga soo bedelay. Police uniform baan ahaa. Bangani Police Station meel dhahan joogi jiray. meeshaasaan shaqada ka aaday. Uhuru Park way meeshaan calanka ku saaray. markaa ka bacdi shaqada booliska waan ka soo tegay 67. Intaas kadib Aabba Cali shaqo noocee ah ayuu qabtay. 68 shaqada waxaa la qoray medical driver, wasaaradda caafimaadka ayaa la qoray. dareewal ahaan la qaatay. Gaarista 67 Nairobi ka soo tagay aakhirkeedii intaan imaaday 68 way waxaan shaqada medical bilaabay kama dareewal ahaan baa la qaatay. bas shaqadii markii saa la siiyayba Mandera transfer la siiyay 68 iyo 69 iyo 70 Mandera kaligay medical driver ka ahaa. habeen maalin ka shaqayn jiray. 70 December yaa la soo bedelay. 71kii meeshan dacmo baa ka jiray kolera. dadka askartii dadka waxaan ciidankii dareewalkii waxaan ahaa dadka qaadayay. Saangur iyo korkora dhexdoodan ka shaqayn jiray. wixii jiran baan bacdi Madhogo Health Center ayaan geen jirnay.
meeshaasna dadka lagu aruurinayay iskugu geynayay oo lagu daaweynayay marka waxaasayto markii lixdan iyo 95kiina 95tii ayaan haddana shaqaaday markaan 27 sano medicolka u shaqeeyay ayaan ka ritaayay gareeyay 50 sano ka hor Aaba Cali wuxuu ahaa ilaaliyaha madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka madaxweyne Jomo Kenyatta maantana wuxuu awood u leeyahay inuu cagihiisa ku socdo oo wuxuu kaashanayaa birtani si uu ugu socdo halyey cali wuxuu hadda aaminsan yahay in ay dawladda heer sare marayso maadaama uu isagu la soo shaqeeyay madaxweynihii koowaad ee dalka aabbaha qaranka Aaba Cali hadda ma awoodo in uu socdo xanuuno la soo darsay awgii waxa uuna ii sheegay in uusan lahayn awood dhaqaale oo uu ku aado isbitaalka si uu isku soo daweeyo markaan shaqada ka baxay oo ritaaya gareeyay ninka markuu ritaaya garayo oo markuu da' joogo waayeel uu noqdo waay markaad waayeelka noqotana xanuunkaada markaad dhalinyarada tahay markaad waayeelka tahay isku mid mihid waxay jugaho ku gaareen idalba kugu soo kacay markaad da' gaarto markaas xanaanaad u baahan tahay haddii xoolo kugu filan aadan haysanin base qofku daryeelaya aadan haysanin yacni dhibkaada markaasayto khatar baad ku sugan tahay marka xoolihiina waa iga xumaadeen oo xawayaanka yaraan lahaa ariya loo baan lahaa marka abaare iyo cudur iyo adiga waxaasayto insha allahu waa iga dhammaadeen marka anigana xoolo kale ma aanan lahayn yacni business kale iyo shaqo kale oo fiican ma aanan haysanin marka daryeel baan u baahday waan xanuunsaday intii hadda muddo qariib 10 sano intii hadda laga joogo waan xanuunsanayay mar aan looloodayay mar aan fariistayba intii hadda 6 sano waan fadhiyaa marka xanuunkaygana jilbaha iyo kaadida oo idhibaysa iyo indhaha iyo korka oo barbarare yay ahaayeen marka Nairobi baa mar aan tagay operation baa ishoo labadii indhood ishoo liisoo operationay ishi baan hadda ku socdaa oo aan si fiican wax u arkaa ishi kalena wali qarash aan hadda operation ku aado maanan haysanin taala adligeed waxaan u baahanahay in kaalmaan u baahanahay in la kaalmeeyo oo dawladdii inta aan u shaqeynay 35 sano u shaqeynay ay xasuusato oo bacdi meel cidla aan liiga tagin oo la daryeelo ayaan u baahanahay cali wuxuu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka codsanayaa in uu fiiriyo geesiyada u soo halgamay waddanka isla markaana uu xaaladooda la socdo Mheshimiwa Baba Taifa Uhuru Muigai Kenyatta waxaan ku sheegayaa anigu aabbaha baan la soo shaqeeyay aabbaha baan meesha ka soo qaaday maslaxadiisa aan ilaalinahay loo dhawaa intaan ka soo qaaday maral keenay maral baan ka qaado ka tuundo baan geeyay maamada la socotay labadaba nabadgelyadooda ilaalinahay ilaahay baa ilaalinay laakiin ninkii waardiyaha ka ahaa habeen maalin baa soo jeeday aniga weeye marka taal adligeed waan xanuunsaday waxa wiilkayga oo kala tahay waan xanuunsaday marka waxaan rabaa inaad ii axsaan fasho ood i kaalmayso daawadayda iyo daryeelkayga aad ii ogaato waayo ninka hadduu shaqada ka baxa faraha laga qaadaa dawladda farahay ka qaadaa hadduuba nin madax ahayn marka inaan faraha laga qaadin oo intaan noolahay ii ogaado haddii aan dhinto muslimiinta walaalahay ay xabaalaya ilaa nin islaanaan ahay laakiin intaan noolahay daryeel baan u baahanahay dawladdii intaan u shaqeeyey 35 sano aan u shaqeeyay inay meel cidli iga tagin oo la ii daryeelo oo la ii ogaado bukaankayga aniga carruurtaydaba hataa cunugoo hadda shaqo la ii siiyey ma laha 6 rag aan dhalay marka bacdi ilmahana shaqo la ii siiyo shaqo fiican la ii siiyo anigana la ii daryeelo la ii ogaado dawladda ay ogaato intaan ka dhimanahayo lii axsaan falo gaari aan ku socdo ma haysto beer fiican ma haysto balood fiican ma haysto ما هل بوسان دجناهاي أو بعدي أنا المهيجة أن كوا ذا نول هاي نتقالها استميه دولة دو حنكرها أنا إيه أحسن فشو خاصة أهورو مينغاي كياتا رئيس ويتو يا كينيا وحنربا إن شاء الله أنا لي أحسن فلو
khaasatan adiga aad ogaato hataa maamadii iyo reerka in la isoo tuso oo maamadu mar labaad haddana aan is aragno oon isbaranno ilaa waqti fog baa laga joogaa 50 sano ka badan baa laga joogaa waqtiga isku kaan dambeysay ay dawladda hadda intay dhisan tahay qariib 350 sano ah marka reerkii inaan isbaranno mar labaad oo reerkiina hataa isku kaan geyso dad xiriir aan yeelano oo anigana bacdi insha Allah la kaalmeeyo ka aad kaalmeyso ayaan u baahanahay Aabba Cali Xuseen waa haliyey wuxuuna u soo dagaalamay xorriyadda waddankani Kenya isla markaana maanta waxa uu dawladda Kenya ka codsanayaa in ay gacan buuxda u fidiso isla markaana ay taageerto Cabdiwali Cabdi Maxamed barnaamijka umuuraha Gaarisa aad buu maasan yahay Cabdiwali Cabdi Maxamed oo warbixintaasi ku saabsan haleeyadii u soo halgamay xorriyadda waddanka Kenya nooga soo diyaariyay magaalada Gaarisa halka warkaasi aad wali kala socotaana waa muqbaahiyaha SCN haddaanu dib inuu xusuusino qodobadii warka ugu door koronaan waxa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen shil booyad oo ka dhacay magaalada Naivasha qarax ka dhacay afaafka hore ee dekedda Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo rayida iyo dalka Turkiga oo ay ka dhaceen laba qarax oo waaweyn oo isxiga oo iyadana lagu soo waramayo in ay dad ku dhinteen kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon STN haatanna waddanka Turkiga dalka Turkiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen laba qarax oo waaweyn kuwaasi oo sababay dhimashada dad badan inta la xaqiijiyay waxa gooriyooday 38 ruux oo ay ka mid yihiin tiro ka mid ah ciidamada booliiska ee waddanka Turkiga waxaana sidoo kale dhaawacmay 162 kale kadib markii laba qarax oo xoogan ay ka dhaceen gudaha waddankaasi gaar ahaan magaalada Istanbul sida laga soo xigtay dawladda Suleyman Solo ah wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ka mid yihiin 30 ka tirsan ciidamada booliiska iyo 7 rayida waxaana sidoo kale la soo xiray 13 tuhmane oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxaasi amna ay ku lahaayeen 20 ka tirsan dadka dhaawacmay ayaa ka baxay isbitaalka markii loo sameeyay adeeg caafimaad halka 6 ruux oo kalena ay yihiin kuwa ay xaaladoodu adag tahay sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Turkiga labadaani qarax ayaa waxa ay kala ahaayeen kuwa kala dambeeyay wax isku jira 30 ilbiriqsi oo kaliya sidaasi waxa warbaahinta u sheegay mid kamid ah goobjoogayaal goobta ay qaraxyadu ka dhacayeen ka agdhowaa ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga ayaa waxa uu amray in calanka hoos loo dhigo si loogu tiiraanyado dadka ay musiibadaasi waxyeelada ka soo gaartay sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu qaraxii ugu horeeyay ayaa waxaa lagu weeraray gaari ay wateen ciidamada booliiska halka ka kalena uu qof naftiisa uu qarxiyay sida ay wararku tilmaamayaan ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay inay ka dambeysay qaraxaasi laakiin waxaa la tilmaamayaa inay ka dambeeyeen kooxda PKK ee dagaalka adag kala soo horjeeda dawladda Turkiga waxayna qaraxyadani dhacayaan xilli uu sanad iyo bar ka hor uu burburay heshiiskii u dhaxayay dawladda iyo jabhadaasi guud ahaan baa warkii oo aad kala socoteen muqbaahiyaha SN xilligan waa naga intaan warkan warka xiga dib u kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa anagoo isku duuban sidaas iyo amaan Allah